ganacsiyada yaryar ee muddooyinkii dambe ku soo badanayay Muqdisho ayaa muuqaal wanaagsan iyo ifaalo horumarineed intaba ka bixinaya horumarka kala duwan ay ku talaabsanayso magaalada Muqdisho. Tani waxay inta badan kaalin mug leh ka qaataa qurba joogta Soomaaliyeed oo dalka dib uga soo noqda fikirro ganacsi oo aan hore uga jirin dalka. Aadan Ibraahim oo dalka dib uga soo laabtay ayaa hal abuurkan ganacsigan abuuray oo ku aadan gaari laga dhex sameeyo maqaayad oo ay bulshada ugu yeerto maqaayada gurgurta. أصلاً وحكم بلاوتي أنا حد حمرة أسوقري لو سنة دقنا حمر بريس باس وكدالة ما نقص بريس باس وعناه فحالا نيو قري وحكو صبنا بريدو سيتاكوس حاست الحين هذا نيو ماشى محمر ما جيش دتك وجعلان دونانه ما بروست فكرة ماشى ذكي بلاوتي waxaa lagu iibiyaa gaarigan cuntooyinka fudud iyo waliba kuwa qalaad oo aad ugu cusub dalka. Bulshada ayaa siyaabo kala duwan u aragta ganacsigan cusub ee maqaayada wareegta. Wallahi dareenkayga horta meeshaan lama soo koobi karaa baashaan aad u macaan badan yahay inkastoo adiga afar habeen ka soo wareegtay afartaas habeen hadda kama baaqan intaas habeen afar habeen oo hayo afartaas habeen oo iska soo booqana hal habeen jimca ay dhaaftay halkaas habeen jimcana ma aqaan meel ku maqnaayo fasax ma ogi waa soo diyaar garow labarna kama hayo baashaan aad u macaan badan yahay jikina la yiraahdo. gaarigan oo inta badan ku wareega qaar ka mid ah xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho waxaa ka faa'iideysta adeegyada uu bixiyo dadka leh xarumaha ganacsi ee ku yaala hareeraha wadooyinka kuwaas oo mararka qaar waqtiyo dheer uga baxdo aadista maqaayadaha iyo waliba goobaha lagu cunteeyo. cunto waa ku jecel meeshaan macala saara food truck waxa waaye chipska iyo macala tacoska California burrito-ka iyo waxyaalahaas macala macaan martiyalo. dhanka kale tani waxay fursad shaqo abuur fiican u noqotay dhalin badan oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta ganacsigan. waa shaqo abuur ani kaliya maaha ani waxa la shaqeeyo 6 qof la shaqeeyo kulligan waa shaqo abuur oo shaqeynaa alxamdulillah iyo wallahi dad waxa ku dhihi lahaa hadda guriga raashinku kari kartid oo maqaayad weyn inaad ka raasad maribtid gaarina oo weyntaas ka soo gadatid ku wareegtid way ku fududahay. dadka deegaanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadla markay la kulmaan gaarigan maqaayada wareegta ah sabab dhaadheerna u soo gala halka qaarkoodna ayba aad ula fajacsan yihiin. xilliga aan booqanaynay maqaayada wareegta oo ahayd xilli habeen waxaa goobta soo buux dhaafiyay dadweyne fara badan oo aad u daneynaya inay iibsadaan cuntooyinka fudud ee halkan laga heli karo. shaqaalaha iyo maamulka gaarigan waxaad ka dareemi kartaa mashquul zaa'id ah waxaa ku badan dalabka iska daba dhacaya. horta maqaaxidan waxay haysaa wax ka duwan waxyaabaha maqaaxiyaha kala haya because dhamaantood waxa way cuntooyinkooda isku fiilin waaye samaha wax ka duwan hadda waxyaabaha lagu daro kale lagu sameeyo kale adigoo ka helaya meel walba maadaama uu gaari soconaya dadkii ama wadciga environmentiga joogno ma aragtay ma lahan barnaamijkan kale marka dadkan xoogaa interest kala jira oo way xiiseynayaan wixii wax ka duwan way keeneen oo business ka duwan cuntadiina dhadhan ahaan way ka bedelan tahay cuntadii. gaarigan waxaa loo nashqadeeyay hadaan qaas ah oo lagu tilmaam bixinayo waxyaabaha lagu iibinayo wuxuuna noqonayaa kii ugu horeeyay oo noociisa kale ah ee lagu arko wadooyinka magaalada Muqdisho kadib sanado badan. haddii helitaanka cuntooyinka kala duwan lagu heli jiray kaliya in la tago maqaayadaha iminka waxaa la keenay xal oo ah maqaayada wareegta taasoo ka samaysan gaari tagaya dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. gaarigan ayaa lagu iibiyaa cuntooyinka fudud taasoo u sahashay bulshada Soomaaliyeed iyagoo jooga guryahooda iyo goobtooda ganacsi inay helaan dhammaan cuntooyinka kala duwan ee u baahan yihiin. Cabdixamiid Maxamed, Istaan TV, Muqdisho.